ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Yuusuf Axmed oo maanta la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa ka hadlay hadaladii shalay ka soo yeedhay labada xisbi mucaarad iyo madasha wada tashiga ee ahaa in maalinta ay gaadho 26 Juun oo ay ku eg tahay muddo xileedka madaxtooyada iyo golaha wakiilada in la soo dhiso dawlad wadaag ah oo dalka doorasho gaarsiisa. nimanka odayaasha meesha isugu tagay waxaan ka xumahay waxaan غير الدستوري oo aan sharciyeena ku jirin inay halka isku raaceen waxa dastuurka Soomaaliland ay u codeysay 790 ayaynu ku dhaqmaynaa iyo xeerarka dastuurka laga soo dheegay wixii ka baxsanay waa waxayna waxba ka jirin marka waxa غير الدستوري nimanka laga yeeli maayo afkooduna maaha wax sharci ah wax dastuurana maaha